soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal. Mowduuca muuqaalkan ma noqon doono muuqaaladii hore oo ma ahan muuqaala game ciyaaraya ama waxa uu ku sharxi doono maadaama horyaaladii la furay. Dabcan laba ciyaarood oo horyaaladii kuwa ugu horeeyay ee Premier League ka mid ah oo waxaa jiray dabcan aan lacag dhigtay. Waxaana rabaa wixii aan kala kulmay iyo dabcan aragtideedii inaan muuqaalkan kugula wadaago. Marka haddii aad doorashada kugu ridjana ku xashashmada kaaga codsanaya inaad jalka subscribe saarto, muuqaalkan aad like saarto, saaxiibadana aad la wadaagto. ciyaarta caawa ama Sunday ciyaartii maanta la ciyaarayay Super Sunday aheyd ee Chelsea iyo Man City wada ciyaarayeen sida ku muuqata waxaa dhigtay $5,400 waana lacagta ugu badneed ee dabcan aad dhigto Chelsea waana ku guuldareystay sida ku muuqata. ciyaarta inta dhigan ka hor waxaa jirtay ciyaar kale oo Man United iyo Fulham oo iyadana isla Premier League aheyd. ciyaarta waxaa dhigtay $8,500 $13,566 hele almost profitkeyga wuxuu gaarayay $5,566. soo marka $5,566 gamekan Chelsea ayaa waxa dhigtay $5,400 almost $200 oo profit ah. Sada akoonkeyga waa zero dabcan sida ku muuqata. lacagta kalena dabcan inta ugu badneed waa bixiyay $5,400 akoonkeyga ku hartan gamekan oo ku guuldareystay. soo marka sababta gamekan aan ku guuldareystay ayaa waxa ugu weyn ugu muhiimsan ah xaqiiqda marka laga hadlo Chelsea taageera game ugu badan ee Chelsea big teams ka la ciyaarayso dadka janalkii hore ku xirnaan way yaqaanaan waa dhiga jiray shax ahaanna ma u soo gudbi jirin oo waa ogaa oo waxa isdhahay dabcan haddii dabcan shaxana u gudbiso maadaama shaxdeedii aysan ku jirin waxa dhigi jiray Chelsea si personal u dhiganaya maadaama iyada aad taageero. waana qaladka ugu weyn oo aan sameeyo inaa Chelsea marar badan lacag dhigto. laakiin markaan waxay noqon doontaa cashir oo Chelsea dambe waxa dabcan go'aan ku gaaray inaan lacag dambe dhigan sababtoo ah mar walba oo aan lacag dhigto lacag weyn big team ee tahay anu og hadda Man City inay badinayso oo 80% saadaasheeda dhankaas ay ahayd haddana Chelsea aad dhigtay. waa waxyaabaha qaladaadka qofka u sababi kara inuu qasaaro kale. mararka qaar ha isku xirin teamka aad taageerto iyo lacagtaada ama dabcan profitkaada ha ku xirin haddii kale waxaan oo kale kugu dhici karo. tan 10 ani way noqonaysaa sidoo kale muuqaalka sababta u duubay waxay tahay in idinkana 10 ay idin noqoto. adi waxba kaama gelin kooxda aad taageerto kaliya profitkaaga ama dabcan in maxaa ahayd akoonkaaga increase lacagtaada inay increase ku sameysaa muhiim ku ah oo adi halka wax ka faa'iido. haddii Chelsea ay badisay haddii Man City ay badisay adi waxba kama faa'iideysid. laakiin haddii lacagta dabcan mar walba possibility winningkaada ama dabcan probability ugu badan mar walba aad flow gareyso ma kugu dhacayso waxa maanta oo kale igu dhacay. tanna waxa uu talagalay in muuqaalkan dad badan cashir uu noqdo teamka aad taageerto micnaheedu u sameynin lacagtaada inay qasaarto mar walba waxa flow gareysaa probability-ga. soo marka waxaan rajeynayaa in muuqaalkan wax badan ka fahantay. hadda arkaan wax qasaar ah kuma qabo $5,400 oo game-kii ka horeeyay ee Man United aba almost $5,600 ka soo faa'iiday. marka muuqaalkan waxa ugu talagalay in wax badan ay ka fahantaan. anna dabcan mar dambe team aad taageero kuma xiri doono guushiisa. waa laga yaabaa inaad dhigto haddii aad u arkay in probability winningkeeda dabcan uu ka sareeyo teamamka kale. laakiin Chelsea Man City gamekan xaqiiqda marka laga hadlo qof walba wuxuu estimate gareynayaa in Man City badinayso. marka waxaan rajeynayaa muuqaalkan wax badan ka fahantay sidoo kalena aad ka faa'iideysan doonto kan ay ku noqon doonto cashir. marka haddii aad doorashada kugu ridjana ku xashashmada kaaga codsanaya inaad jalka subscribe saarto, muuqaalkan aad like saarto, sidoo kalena horyaalada dib u soo laabteen muuqaalo fara badan oo ciyaaraha soo geli doona. marka waxaan rajeynayaa inaad muuqaalka jalka subscribe saarto, muuqaalkan aad like saarto si uu u gaaro saaxiibo fara badan iyagana marar badan qaladaadkan ku dhici karo si ugu badbaadaan. waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.